بنا وفي كفنا شعلة من علوم توحيدنا عزة المسلمين به قد قهرنا عنيدا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. waxaan ku soo dhex jirnay qoladii khawaarijta ahayd cali ibn abi talib hore ula dagaalantay mabda'a takfiir wal hijra ugu horeysay ummadda islaamka dhaxliso. waxaan hore u sheegnay inay yihiin jamaacadii ugu horeysay ee muslimiinta khilaaf ku dhisan caqiida iyo mabaadi oo aan ra'yi ikhtilaaf iyo masaalix aanan ayna ahayn qoladii bilowday inay ahayd. markaan khawaarijta aan ka hadlayno waxaan ula jeednay caalamka loo yaqaano jamaacat takfiir wal hijra Soomaali kaligeedna uma gaar aha ummadda islaamka oo dhan bay sidaa u joogaan in la ogaado waxa ayaga ay shubha ay sheeganayaan iyo waxa ay daliil u arkaan iyo waxay diin u arkaan iyo ummadda aragtiyada ay kala yihiin. ulajeedadana ma aha sida dadka barkiisa ay u fahamsan yihiin in anaga dadkaas aan ceebeynayna ama manhajkooda iyo macnaha tadliilkooda inaan anaga macnaha ula jeedin ayaa aan tashhiir ku sameeyna ama aan ceebeyn. ulajeedada saas ma laakiin waxa weeyaan hadafka aan kaleenahay an-nasiha weeyaan in ayadana waxay ku dhunsan yihiin ama ay kaga baaba'siin ummadda looga digo in ayaga naftigooda la waaniyo in xaqa ay ku soo laabtaan. ulajeedada la leeyahay nasiihada saas waa diinta islaamka waxay ku dhisan tahay basideedaba in ninka walaalka oo mu'minka walaalkiisa kala wuxuu arkay inuu ku xun yahay inuu u nasiixay. walidaalika nabiga calayhi salaatu wasalaam ad-diinu nasiha markuu nabiga calayhi salaatu wasalaam yiri markaasaa liman nabigu waa tiri wax badan buu sheegay oo likitaabillahi walirasuulihi walia'immati almuslimiina wa caammatihim aan maanta ka hadlayna oo waa arrin bulshada aad u qosayso dhib weyna ummadda ay kala soo gudboonaatay. marka sidaa daraaddeed ma aha in walaalaheen aan caynayno ama aan xumaanka sheegayno laakiin wixii ayaga diin u arkaan iyo meesha khalalka uu ka soo galay inaan ummadda ugu digno ayagana aan u cadayno sida xaqa ilaahayna aan ka rajayn casa allahu an yajcala baynana wa baynahum mawadda haddii aan manhajkii islaamka aan ku kulanno sidaasaa loola jeeda. waxaad dhegta ku haysaa ama xasuus aad u lahaataa nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu tilmaamay khawaarijta soo bixi doonto oo cali ibn abi talib uu la dagaalami doono inaysan waqtigaas kali ku ekayn annahum yakhrujuuna fi kulli zaman. nabiga calayhi salaatu wasalaam uu hore u tilmaamay taas madaxa ku hay marka yaadan isdhihin khawaarijta way soo baxday waqad inqaraduu way dhammaadeen وبالتالي in laga hadlaahu wax jira ma aha jamaacaadkan ayagana cilaaqa ay leeyihiin ma aha. taas hadaa tiraahdo waxaa imaanayso hal shay oo isku hal usuul ah inaad 10 jamaacad u kala fahamtid weligaana waxa weeyaan ma keeni karaysid inaad ogaatid shayga juzuurtiisa ama asalka u laabana jamaaca takfiir waa khawaarij weeyaan. sidaa daraaddeed baan waxaan ku tilmaami doonaa bal awjuhu tashabuh wal ikhtilaaf sidii ay isugu dhow yihiin ee meesha ay ku kala tagsan yihiin. inta aanan taas gelin waxaan jeclaa inaan ku sheego jamaacatu takfiir fi hada al-asr laba qayb ay kala noqdeen. markii hore jamaacay wada ahaayeen qolaba waxa weeyaan culayskii iyo maxaan ku yiraahdaa shaqadii adkeed u qaadan weysay bay qoladii kale ka soo jabeen. laakiin ha soo jabaanee in dadkii ahlu sunna wal jamaa iyo manhajkii salaf saalix in ku soo biiraan mayna awoodin. marka jamaaca takfiirna way ka soo baxeen dadkii ahlu sunna ama salaf saalix manhajkooda haysana kuma ayna soo biirin caamatul muslimiin waxay tageen la dhihi karo waxa weeyaan wasad oo u dhaxayso oo aan dhihi karna manzila bayna manzilatayn. takfiirna ma la dhihi karo dadkii kale salafkii iyo manhajkii saxiixa ah oo ahlu sunna ay lahaayeen kuma ayna soo biirin. sidaa daraaddeed baa waxa weeyaan ay qoladaas waxay dadka ku magacaabeen markii la fiiriyay dhaqankooda iyo siday u socdaan yaa waxaa la yiraahdaa jamaacatu takfiir aljawi la yiraahdaa oo macnaha waxa weeyaan ula jeedada dadkaan soo yahay aan iska ahaano yaan noola fahmin wax calaamo ah annaga inaan leenahay oo shaqo islaam kulana aan loola fahmin. sidaa daraaddeed garkay xiiraan lugihiiba macnaha shaatigii baa la dheeraysanaya qamiiskii maxaan ku yiraahdaa sarwaalkii lagu jiidaya. ula jeedadana waxa weeyaan inaan balay fahmin in wax jamaaca ama aan islaam shaqo aan ku leeyahay. marka taa waxa weeyaan si way ku fiican yihiin oo dadkaas way ka soo jabeen ummadii bay wax la cunaan dhib weynay ma hayaan xataa laga yaabo inay duruusti kula akhristaan masaajidii dadka ay la dukadaan oo ay bay iskaga muuqdaan markaad fiirisinin caami oo diin shaqaba aan ku lahayn. yani xagga ay ka yimideen wax wanaagsan weeyaan
laakiin waxaa qaabdarra ah nin shaab ah oo diinta ilaahay wax ka yaqaano oo haddee intaasoo dhib soo maray in uu naftiisa ku qanciyo wax diin la yidhaha calaamadeed aan laygu arkin inuu yidhaahdo ee xataa simaadkii qofkii lagu yaqiino muslimka ahaayo shacaa'irkii oo diinta garkii iyo maxaan ku yidhaha wixii lahal ahay in aanba lagu arkin oo markaana naftiisa tusiyay inuu islaamka saas ugu adeegayo waxay tahay runtii arrin aad iyo aad u fool xun liannahu nin kari waayo maanta oo aan dawlad jirin wax jira aanan jirin in calaamadii islaamka aan naftiisa ay ka muuqato kari waayo inuu islaam u dhinto uu naf iyo maal u huro waxa weeyaan laga sugi maayo marka qofka bani aadamka naftiisa ma khiyaano khidaacana kuma sameeyo dadka waxay isog yihiin waqtigan la joogo manhajkii ay soo haysteen ee waxay ku dhex jireen ay wadi waayeen efshalmeen naftoodin ay dayacantay marka yaysan moodin meeshii hore inaan ku laabano waxaa nooga fiican in jamaaca wasad aan iska nimaado dhibkii horena aan ka nimaado dadkii aan ka tagna shalayna saan ugu noqonana ma lehe aan meeshaan iskaga celino waxa weeyaan waa nooc oo qofka shaytaanka uu ku adeegsanayo xaq iyo baatil wax u dhexeeyana ma jira marka maadaama aad jamaacadii hore aad ka soo tagteen waxaan idinku waaninaya aniga inaad xaqiiqada aad u raadisaan shariicada islaamka nusuusteeda kitaabullahi wa sunnatu rasuuli aad wax ka akhrisaan dadka muslimiintan aad wax la qabsataan ayaan idinku waaninayaa waxaad adiga naftaada inay kaa muuqdaan aadan rabinne ummadna kama dhaadhicin kartid diinna ma noqon karto lianna waad baqarinaysaa adiga dhan marka qoladaas waxaan leeyahay waxaa weeyaan takhataahum zaman waxa weeyaan zamankiyaa soo dhaafay xaqiiqadii waxay yihiinna ma laha inay naftooda ku laabtaan oo si xaqnimo ah oo geesinimo ay ku jirta xaqa ugu soo laabtaan wax ka roon lama arkay arrintaas saasaan horta qoladaa dhihi lahay qoladan kaloo jamaacata takfiir hadeertaan oo wada ognahay iyo waxa ay haystaan waxaan ku tilmaanay bilowgeedii markii ay caalamkan hadda casrigan aan joogno ay soo baxayaan asbaab badan baa soo bixisay sababkii ugu horreysaan halka sheegno waxay ahayd markii dad badan oo muslimiinta caalam islaami ku nool inta la xabisay xabsigii cadaab badan oo aad u qaab daran oo tusinaya islaamka iyo dadkiisa sida loo necab yahay ee ay tala ku bixisay yahuud iyo kristaan in muslimiinta saas loo cadaabo saanan islaamka loogu fikirin markii cadaabkaas ku dhacay ay ka soo baxeen yaa waxay isa siiyeen baan ku iriyey inay tilmaantiisa waxaa hadda ka dhacay ciraaq sujuuntiisa oo kale abnaa'ul ciraaqiyiina gacantooda lagu qabanaya laakiin dad cadow ah dadkii u meeriyey markii saas ay lagu sameeyey waxay yidhahdeen dadkii arrintaa nagu sameeyey ee madaxda ahay ama ha ahaadaan ninkii madaxweynaha ama qoladii asaga la shaqaynaysa ama madaxdii oo xabsiga haysatay kulligood waxa weeyaan bay yidhahdeen waa gaalo lianna waxay saas noogu cadaabayeen oo waxshinimada oo xumaanta ah waa islaam nacayb sidaas bay yidhahdeen taas waxay sii raacsiiyeen marka inay yidhahdeen shacbigii dadka uu shaqaynay ee uu gurbaantumay ee ayaga inay madax yihiin u haystane ayagana waa la xugun bay yidhahdeen qayb sababtooda oo takfiirka ay sanadkan ama zamankan ay ku qaateen taasaa kowka qolo kale waxay leeyihiin ayagoon waxbana aan la cadaabin waxbana aan lagu samaynin yaa mujtamacaadkii markay arkeen isticmaalkii uu dhulkan ka baxay ou reebay nidaamkiisii ama qawaaniintiisii ou reebay ummaddii oo islaam sheeganayso waxay ku dhaqmaysana qawaaniin iyo gaalo waxay ka tagtay ay tahay ummaddii islaamka ayna arrintaas dhib ayna u arkin yaa waxay yidhaahdeen dadkan ayaga ah dad ay diin soo martay maba ahaba wa ilaa diinta waa diin kaamil ah oo shareeca iyo maxaan ku yidhaahdaa iyo caqiidaba leh marka ummaddan shareecadoodii meel inta looga dhacay xugum gaale iska qaadatay isagana aamusan maba dhihi karnaba inay muslimiin yihiin sidaasay qole ay leeyihiin qolo kale waxay leeyihiin ma ahee markii aan aragnay dadkii xataa shacaa'ir tacabudiya oo ilaahay baryitaankiisii salaadii soonkii inaan aragnay xataa iyada naftigoodana ilaahay keligiis in loo keliyeelayn ee wax badan ilaahay iyo kayrkiisaba layskula caabuday marka ma dhihi karna yidhahdeen dadkaasaa muslimiin ma dhihi karno sidaa daraaddeed waxa weeyaan inan muslimnimadii jadiid min jadiid loo bilaabo ee lagu soo noqdo markaa kadib aan dhihi karna ninkii anaga dacwadeena la qaataa muslim aan dhihi karna asbaabtaas waxay leeyihiin waxay ucugsanayaan waxyaalo badan aniga waxaan kuu sheegi doonaa shubhayooyinka ay leeyihiin hal baan kugu sheegi doonaa ijaabadeedana waan ku sii doonaa laakiin saadan u iloobin maadaama khawaarij aan kasoo hadalnay iyo jamaacata takfiir yaan doonayaa intaadan kuwii hore iloobin inay meesha iska shabahaan iyo meesha ay kula tagsan yihiin inaan kuu sheego nebiga tilmaanta uu ka bixiyey xadiidkiisii bukhaari muslim lagu wariyey nebiga tilmaantii hore uu ka bixiyey qoladaas khawaarijta wuxuu ihi
xudathaau lasnaani sufahaau laxlaam waa dad sanadahooda uu yaryar yahay, cumrigooda uu yar yahay, caqligooduna uu gaaban yahay. haddii aan tilmaantaas fiirino qoladii lagu tilmaamay oo khawaarijta ahayd iyo jamaacata takfiir fi hada alcasri iskaga mid bay yihiin. liannahu qof kastoo muslima ama wax og wuxuu dareemi karaa waxa maanta jamaacata takfiir wato ama uu gurbaantumay waa ilmo yaryar oo dumar iyo ragba leh oo aan macnaha sanadkoodina uu yar yahay, caqligooduna uu gaaban yahay, oo diinna aan lagu aqoonin, waxbarashana aan lagu aqoonin, xataa jaanib siyaasi aanan war ka ogeyn. marka xaggaa waxa weeyaan isaga mid weeyaan. qoladaana waxa weeyaan waa qolo yaryar oo caruur ah. waxaanu aragnay gabar yar oo dugsi dhiganayso ee inta wixii lagu akhriyay qur-aankii xataa aan farti dhigi karin inay leedahay aniga ummadan dhan oo sheekh iyo shuyuukh leba aniga ka cilmi badan, waxay haystaana waxba kama jiraan. haddii la weydiiye hal aayado si fiican oo saxay u akhri karta ma laha. miyaysan ahayn xudathaau lasnaan sufahaau laxlaam? miyaysan ahayn qof caqligiisana uu gaaban yahay, sanadkiisana uu yar yahay. xukumka sidiisaba lilaqlab waa in laga helo hal qof ama laba qof oo dad waaweyn ama arrintaas ku gaboobay diidi maysa, laakiin aqlabiyada ama siday u badan yihiin markaad fiirisid caruur yaryar inay yihiin. haddii aad la doodidooda la fadhiisidna caqligooda aad u gaaban yahay meesha ay ka hadlayaan iyo meesha kale. nin baa waxaanu ku yidhi jumcadii aniga ma dukanin buu yidhi, gurigaan kusoo dukaday. markaasaan waxaanu ku yidhi war miyaadan maqlin yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nuudiya lisalaati min ywmi اljumucati fascuu ilaa dikri illah, ilahi uu leeyahay. markaasuu yidhi aayaddaas waan maqalnay waanan akrinay, laakiin waxaan u haysanaa buu yidhi inayba soo degin weli aan anaga maka joogin. bal caqliga oo rumaysanaya aayad soo degtay 1400 sano ka hor ninkii dhahaya waxaan ictiqaadinay weli inayna soo degin ee xaalkeedii aan la gaarin oon hadda annaga aan joogna jaanibkii caqiidada iyo maka un baan joognaa. marka isuma baan arkaynin buu yidhi in aayaddaas annaga ayna la hadlayso. ummaddan isu aadaamayso oo salaada gelaysana wax kalan ka aaminsannahay. nabiga calayhi salaatu wasalaam caado wuxuu ahaan jiray markuu dagaal in qoom ku qaado uu doonayo aadaan in laga aadaamayo in kale u dhegaysan jiray. haddii meesha laga aadaamana inay muslimiin yihiin oo ogaan jiray. haddaa aadaan uu maqli waayona dagaal buu ku qaadi jiray. marka aadaan waa shaciira oo min shacaa'ir alislaam ah. in lagugu yeero oo adiga aad u ictiqaadisid wax waktigooda la jooga maba ahabo, waxa weeyaan wax aad u yaabahay noqotay. marka arrintaa waxay noqotay xudathaau lasnaan sufahaau laxlaam. waa sifa aan dhihi karnay si toos ah ay ugu dabaqantaa dhalinyarta maanta u ololeynaysa jamaacada la yidhahdo jamaacata takfiir. caruur yaryar oo wax mageysa ah oo caqligooda uu gaaban yahay, hal meel wax laga tusiyey, dadkoodii lagu diray, ummadoodii lagu diray, diintana si kale loo fahamsiiyey. xaqiiqada jira waa sidaas. waxaan saas uleenahayne ninka doonaya in xaqiiqada uu ogaado, dadka inta arrintaas ku biiray kasoo laabtay ee ilaahay diinta uu wax ka baray, bal ha weydiiya markii jamaacadaas uu ku jiray say u dhaqmi jireen iyo say wax ugu fikiri jireen, iyo markii ilaahay xaqa uu fahamsiiyey sida ay u fahmayaan iyo sida ay yihiin, bal ha kala ogaada. sidaa daraaddeed waxa weeyaan aynan shaki ka joogin inay meeshaas xudathaau lasnaan sufahaau laxlaam u yihin. nabiga calayhi salaatu salaam wuxuu ku tilmaamay inay yihiin dad oo fahmigooda daciif yahay, fiqhigooda iyo fahmiga islaamka ay fahmayaan daciif wa. taas waxaa laga soo qaatay yaqra'uuna alqur'aana laa yujaawizu xanaajirahum ama taraaqiyahum. nabiga labadaba waaye qur'aankay akhriyaan laakiin dhuuntooda ma dhaafo. taas waxaa nebiga uu kala jeedaa qur'aanka ay akrinayaan hoos uma dhaca, qalbiga wax lagu fahmaa qalbigooda maba aadabo. afkaan bay wax ku celcelinayaan laakiin waxa ay akrinayaan ma fahamsano. taasna waxa weeyaan waxaan dhihi karnaa si fiican oo si toos ah ay isaga shabahaan nimanka jamaacada takfiir la yidhahdo iyo khawaarijtii hore nabiga calayhi salaatu wasalaam tilmaamta uu ka bixiyey waa isku mid. oo waxaanu ognahay fiqhi ma yaqaanaan, xadiid ma yaqaanaan, tafsiir ma akhristaan. liannahu nin yar oo meel asoo dugsi jooga wax loo akhriyey yaa inta meel fadhiistaa laleeyahay ummaddan diin u fasir adiga asoon diin fahamsanayn ee wuxuu akhristay aan jirin luga alcarabiya walaa sarfi walaa xadiid walaa tafsiir uusan akhrinin. markii la yidhaha sheekh baa tahay ummaddan oo dhan wax u sheeg, ulajeedada aan leenahayn in dadkaas aad ka soo jertid leewayaan. taa waxaad dareemi kartaa markaan in dadkaas fiqhi iyo fahmi in ilaahay subxaanahu wa tacaala uusan agmarinin. ilaahayna wuxuu dadka ku tilmaamay dadka cilmiga laga qaadanaya waraasikuuna fi lcilmi baa ilaahay subxaana wa tacaala sheegay. oo dadka cilmiga laga qaadanaya waa dad darajo leh, cilmigana waxa weeyaan rusuukh ku lahoo aad iyo aad u fahamsan baa la doonaya.
ninba aan waxba fahamsanin fikrad kaligeed qaatay lama dhihi karay marka meeshaas waxaan dhihi karnaa 100% way iska shabahan طيب sidaas oo kale waxa weeyaan nabiga kaleey salaam wuxuu ku tilmaamay siimaahum aw dhuhuru siyama saalihiin calaamada lagu yaqaan dad ay wanaag oo ka muuqdo waa markaad aragtid waxay macnaha sameynayaan iyo dibka ay dul qaadanayaan waxa weeyaan dad ay cibaado ka muuqato qoladaasna nabiga wuxuu ku tilmaamay tahqiruuna salaatakum ma'a salaatihim wa siyamakum ma'a siyamihim dad hadda cibaadada ay qabanayaan cibaadina alla barba dhigtay waxaad u qaadan kartid mala ummadan waxaad arkaysaa waxyaalo badan oo ma anzala Allah bihi min sultaan yu aad ugu dhagan yahay oo naftiisi iyo dadkiisi uu kaga go'aya intaas wuxuu u yeelaya inuu cibaadada Ilaahay ku dadaalo oo ula jeeda marka waxa weeyaan xaqaana way iskaga mid yihiin oo calaamaadkii ku dhaganaashada cibaadada daradeed yaa waxyaalo badan oo xaq iyo baatil uu sameeynay dhuhur siyama saalihiin waa calaamadaas weeyaan طيب waxa calaamaadka nabiga kaleey salaam uu ka bixi kamid ahay yaqtuluuna ahla al-islam wa yad'uuna ahla al-awsan bal u fiirsa khawaarij waxa la dhibka ay haayeen dadka muslimiinta bay dhibaan dadka gaalada ah shaqo kuma sheegtaan taasna waxaan u aragnay hadirtaan xaqiiqada jiro meel kasta iyadoo jamaacada takfiir ay joogto laakiin dhulkeena hadda aan joogno burbur weyna ka dhacay ummadii dhibaato weyn baa haysato dagaal baa dhacay marka ma arkaysid nin jamaacada takfiir ku jiro oo dhahay war ummadan sidaan ay haysato sidee baan xal ugu raadinaa asoo dhahay ama shirka soo qayb galay ama habeenkii ku fikirayo meeshaan xoolihii la dhacay dumarkii la kufsanayo jidadkii la gooynayo ummadii karaamadoodii oo dhan la baabi'inayo mashaayikhdii la dilay siyaasiyiinta la dilay saraakiishii la dilay marna bay isweydiin maya bal waxa weeyaan waxyaalaha u qoran ayaga waxa kamid ah la tahtamu al-jamaa'atu bihalli mashaakil al-mujtama' al-jahili sidaas ay leeyihiin jamaacadeena shaqo kuma laha mujtamacan jaahiliga dhibaatooyinka haysato inaan xal u raadin annaga shaqo aan ku leenahay ma balaha bal waxay rabaan in arintaas ay ku sii fogaato marka u fiirso muslimiinta waxa dhib ku hay muruku ma hayso waxay nas ku qorteen oo ayaga qoraalkooda kamid ah dadka muslimiinta isku sheegay hatta annaga waxay nooga liitaan ahlu kitaabka iyo dadka ahlu dhimada noola mid ma ahan oo waxaan ula dhaqmayna sida gaalada aan ula dhaqmayna bal u fiirso qoladii horena waxay yiraahdeen lagu aqoon jiray muslimiinta ay la dagaalami jireen dadkii ahlu dhimada iyo muslimiinta ku dhaxnoolayna waligood xoolahooda ma ina taaba jirin maalkoodana ma ina banbixi jirin tan hadda meeshaas way ka shabahan oo in ninka caruurtiisa habeenkii loo soo dib dhaafo caruurtii laga wato naagtii laga nikaaxsado ummadii tafriiq lagu kala rido waalidkii liira ima dhalin sharci isku ima aan dhalin dibkaas waxa weeyaan waxaad u moodaa ummadda islaamka baa lagu hayaa xal ay keeneen ama dhibaatadan gaalada dhulka islaamka oo dhan in guumeysata rabto ayaga qaamuuska ugu jirtaba meeshaas markaad fiirisidne waxa weeyaan si toos ay iska shabahan lama dhihi karo arintaas ma jirto lama dhihi karo waxaas wax la yaabaa qof aqli leh wadankii dhinac kaga nool dhahay mashaakilkan dhacay meesha rabaan ha gaaraan aniga ima qusay ninka dhahay nin aqligiisa oo kaamil yahay ma laana dadkan adiga waa la nooshay dibkoodana waa ku dib deeftoodana waa ku dheef inaad adiga mustaqbalkooda iyo diintooda aad ka murugtid oo habeen iimaan u soo jeedid waa waajib ku saaran nabiga wuxuu ku tilmaamay ummadda inay hal safiina isla saarantay halkaas safiina waxa weeyaan hadii dadka hoos ay ka jeexaan ummadda dhan way wada maashoobaysaa maadaama hal khata oo qof galay ummadda dhan ay ku wada baaba'ayso inaan niraada ma noo banaantahay ummadan dhibaatada haysata annaga nama qusayso oo hadhowti dambe waxa weeyaan ummadda hadii la wada ay ciqaab mudato adiga waad ku dhaxnooshahay oo hadda adiga kowkab kale oo aan ardada ahayn ma ku noolid marka waa aqliyad aad u hoosayso waxa weeyaan waa tan nabiga aan u niriyay inuu yiri hudathaa al-asnaan sufahaa al-ahlam aqligoodana waa gaabayeen sanadkoodana waa yar yahay wax kalena ma aha ninkii dhahay ummad uu ku dhaxnool yahay meeshii rabta ka dhacda aniga ma khosayso ee doonaya inuu asaga ka dhaxbaxo wax aad u qaab daran weeyaan waan ognahay reer bani israa'iil saddexdii firqo markii saydkii oo maalintii sabtiga la ugaarsaday la yiri hal qolo kali ayaa fakatay qoladii kale ka aamustay iyo kuwii macsida sameysay wal islaa cadaabay marka munkar dhacay inaad ka aamustid oo tira aniga ima khosay waxay kamid tahay aqli yaraanta aan u sheegayna dadkaas inay ku dhacay calaamooyinka lagu yaqaan waxa weeyaan al-ghurur wa ta'alum ala ahli al-ilm in dadka ahlu cilmiga oo ahlu aqliga
oo ahlu xalli walcaqdi ah inay iska weynaysiyaan ayagoo caruur yar yar ah ee wax yar intay isku soo akhriyaan nin odayna ayna wax ka maqlin nin caalim ayna ka maqlin waalidna ay waxna ka maqlin leeyihiin kulligiin waa dhunsantihiin oo anigaa idinka toosa taas waxaanu leenahay qoladii khawaarijta horay baxday isma ayna weydiinin war annaga markaan gooni u soo baxnay aan isfiirin hal nin oo saxaabatu rasuulillahi ma nagu jira saxaabadii oo dhan warkaa waa wada joogeen badigood nin taabiciintii saxaabadii cilmi kala kulmay ma nagu jira jawaabti mayo isma ayna dhihin war annaga inteenaan yar oo sidaan xaq aan akri karno ummadaasna kama dahsoonaanaye aan isku laaban ma dhici karta in saxaabatu rasuulillahi xaq ay arki waayaan annaga le aan aragno cilmigan ayaga le aan ka soo gaarnay wax aqli geli kara ma ahan aan isku laabanna ma ayna dhihin kuwaana sidaas oo kale waa mashaaikhdii iyo dadkii caaqiliinta ahaa oo dhan yay leeyihiin aniga adinka waa dhunsantihiin annaga keligeenu baa toosan waa nooc oo min atashaabuh oo aan la dareemi karo wayna muuqata waxyaalaha iska shabaha waxaa ka mid degdegitaanka axkaamta in dadka la iska dul saaro waxaa iska sahlan kaasaas muu yidhi gaal waay kaasow maaha nikaax laguma dhalin kaasow maaha wuxuu qalay in la cuno ma banaano waxaa la yidhahdaa altacajulu fi itlaaqi alaxkaam qofka axkaamtio dusha laga saaro oo la yidhahdo iska sahlan tahay aan loo fiirsanin ninkaan waxaan muxuu u sameey ma daliil buu u haystaa arrintaan ma jaahil buu ka yahay muxuu u cogsaday idoon la dhihin yaa waxaa la iska leeyahay wuxuu kala og yahay male ninkaan saas weeyaan taas waxay ka soo qaasteen ustaadkoodii hore uu nebiga tilmaamo dulkhuwaysira ninkii la dhahay waa kan nebigu ku yidhi markuu arkay nebigu wax qaybinayo icdil yaa muxamed fa inaka lam tacdil buu ku yidhi bal u fiirso ma dhihin nebi maxamedow wax baad qaybinaysaa waxaanu ku aragnaa dadna inaad u badisay dadna aad u yaraysay ee maxaa u sababe intay yidhaahdaan arrinta ay macnaha ay tartiibiyaan ma ayna yeelin wuxuu yidhi arrinta aad samaynaysid waxa weeyaan waa dulmi iyo jawrnimo wa waxaanu yidhi saxaabadii kale waxay yidhaahdeen ilaahay rasuulkiisa dad aan islaamka kaga fiicannaha wax badan la siiyo annagana waxna lama siinin nebigu waa ugu jawaab wuxuu yidhi dadkaan islaamkooda daciif haddii aanan xoolahan ku adkaynin qalbigooda aanan ku sugin islaamka inay ka laabtaanaan u cabsanaya adinkana saxaabo fiican oon iimaankooda ku kalsoonahay te wax haddii ladiin siiyo iyo haddii ladinka tagaba wax idinka iskain bedelaya ma lehe kuwaan baan waxaan rabaa adduunyada iska waxba qiimo aan lahayn inan ku soo dumo qul mataacu dunyaa qaliil waalaakhiratu khayru liman ittaqaa walaa tudlamuuna fatiila markaa nebigu markuu ansaarta gooni ula kulmay oo u sheegay uu yidhi inta adinka islaamka aad u qabateen wanaagiina miyaysan idiin ficnayn an tanqalibuu birasuulillahi bal u fiirso waxaynu kuwaan xoolaan siinaa laakiin in rasuulka ilaahay intuu idinla tago gurigiina idinla aado miyaysan idinka qiiman badneen dunyaa ta'allaftu bihaa quluuba aqwaamin min arracaa dad aan waxba aanan lahayn adduunyo yar aan kusoo markaasuu yidhi ulajeedada waxa weeyaan ansaartii iyo saxaabadii markay wax ay arkeen nebiga say u weydiiyeen iyo sida fiicnaantada badanna oo looga qanciyey waxa weeyaan arrintaasaa laga rabay ninkaana asagoo waxba hubsanin icdil yaa muxamed fa inaka lam tacdil waxay qayb ka tahay in ummaddii la yidhaahdo saan muu samey gaalwa saan muu samey nikaax kuma dhalin saan muu samey kayta waay salaad laguma xiran kara waa tacajul fi itlaaqi alaxkaam waa isaga mid kuwii hore iyo kuwa maanta jiro ciddii waan kala geynaa yidhaahdane waxa weeyaan tafriiq bayna mutamaathilayn oo aan sax ahayn weeyaan ayb waxaa lagu yaqaanaa kuwii horo surcatu taqallub waاkhtilaafu الra'yi wataxaruk bilcawaatif waxaa lagu aqooni jiray maanta bay gooni isula baxayaan galabta intaan la gaarin ayaga isasii khilaafay liannahu aayaddii qur'aanka oo la akriyo uu yidhahda ninkaan ummaddan waan ufasiraya wuxuu leey adiga sidaasaad u fahamtay anna sidaanaan u fahmay markaasuu wuxuu leeyahy fahamkaadii maadaama fahamkayga u khilaafay aniga iyo adiga muslim iyo gaalaan kala noqonay bal u fiirso laba qofood oo jaahiliin ah ay yidhaahdeen qur'aan baan akrinaynaa fahmaynaa waxaa meesha ka imaanayso in nin kastaba fahmigiisa fahmigi kale u khilaafo qawaacid male usuul male marjiciyad male culamo ma jiraan marka qof kastaday la noqotay buu sheegaya faama aladiina fii quluubihim zaygun fayatabicuuna ma tashaabaha minhu ibtigaaءa alfitna waibtigaaءa ta'wiilih wma yaclamu ta'wiilahu ila allah wاlraasikuuna fi lcilmi yaquluuna aamanaa bih bal u fiirso qolada fitnada iyo maxaan ku yidhahda balaayada inay wataan lagu yaqaano caado waxay u leeyihiin ka mutashaabihaadkiisay raadiyaan waxay u raadinayaanna ibtigaaءa alfitnati inay ummadii ay ku kala geeyaan khawaarijtii hore waxaa lagu aqooni jiray kulamaa meel ay isugu tagaan in ra'yigii markii la dhex dhigo
inay kusii kala qaybsamaan waataan horey kugu sheego waxa weeyaan maadaama dad adag ay ahaan jireen waxaa lagu jibin jiray keli ah war aayadan tafsiirkeeda noo sheega sina isku soo waafaqa la dhihi jiray aayaddii markaasaa waxa weeye inta yihiin isku wada khilaafi jireen markaaba waxay samayn jireen nin kastaba seef ninka kale inuu qaato maadaama fahmigayga uu khilaafay waa inaan xoog u isticmaalo sida aniga waxaan u fahmay uu ila fahmo sidaasay ku dhaqmi jireen qoladaana waxa weeyaan waa nafsi طariiqa surcatu taqallubka way leeyihin iyo ikhtilaafu ra'yi waxaanu ognahay hadda maanta inta hadda rag waaweyn oo culamada kamid oo raggaas kusoo dhex biiray oo aanu ogaa jirnay masaajidka oo laga dukanaya keligood inta tiir isku aadiyaan ay keligood dukanaya waxaa fiqxumada kamid ah qofkaan haddaadba ku qanacsan tahay inaad salaadiisa ay kuga ansixaynin aadaankiisa uusan ku jirin inaad gurigaada isaga dukatid ay saxiix ahayd caqli ahaan saasay ba ahayd markaaba waxay samaynayan intay masaajidka yimaadaan ay gooni u dukanayaan qof bay u dukanayaan haddiiba adiga aadan jamaacada ku dukanayn masaajidka waxa ku keenayaan bal la yaabsanay wax lala yaabay noqotay marka waxaanu ognahay ninka maanta jooga biri waa galaya maalinka dambana waa kasii baxaya bal waxaanu aragnay laba tajribo weeyaan nin jamaacatu takfiir gal ee ku duqoobo madaxa kaga cinroobay waa yaryahay laba shay un bay ku dhamaadeen nin ilaahay hanuun oo la doonay ee wixii markuu ku rafaado wax diin ahaan ilaa lama wadi karo dadkaadii baad goysay ummadii baad gaalo u aragtay fahmigii nusuustii oo dhan baa waxaan asal u lahayn baad u fahamtay marka qofkii waa iskadeedaya kadeedkaas laba un buu noqonaya in qofkii intuu kadeedka u qaado waayo iraado xaqa aan raadiyo ahlu cilmiga intuu u yimaado ilaahay wixii ka baabiyo oo xaqi qaato iyo inuu diintii oo dhan ka wada baxdo waxaan u aragnay dad jamaacada takfiir awal ka tirsanaan jiray markii dambana salaad aan sheegin diin ha sheegin oo waxay yihiin baan dadkii caamada xataa ay ka fiicnaadeen marka taas waxay qayb ka tahay surcatu taqallub واختلاف الرأي والتحرك بالعواطف عاطفة baa ku dhaqaajinaysa maantana halkan baad joogtaa birina xaggaasaad joogtaa hadal baa kaa dhacaya biri inaad ka noqoteen ay kuga adag tahay waa nimankii shalay yidhi cali bni abi aalib waa inaad qaadataa isxakam macnaha camr ibni caas iyo abu muusa taxkiimkoodii waa inaad qaadataa markii arrintii lagu qancay in la qaatana waxay yidhahdeen haddana waa inaad ka noqota haddaad ka noqon weysana waan kula dagaalamaynaa fii khilaali darfin yasiir yaa waxay ku kala baxeen 3 madaahib 4 madhab walidaalika inta madaahib ay kala baxeen wax la koobi kara ma marka taa waxaan dhihi karnaa waxa weeyaan waxyaalaha calaamaadka jamaacada takfiir fi hada alcasr iyo khawaarijtii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu nabigu ku magacaabay almukaffira ilaan waxa weeyaan nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri tamruqu min alislaam maariqatun yaqtuluuna ahla alislaam waxay u dileen waa gaalnimadii waaye marka intaas waxaad maskaxda ku haysata oo aad fiiro dheer u yeeshataa calaamaadkaas inay iska shabahaan ayaga iyo maxaan ku iraadaa qoladii nabiga uu tilmaamay magaca haba kala bedelnaane inay isku hal shay yihiin saas oo ictiqaadi si fiican u faham magacii hore khawaarij ha ahaadaan maariqa ha ahaataan kuwaana magacan hala baxeen ama ha loo bixiyo magac macna ma lehe madmuunka ulajeedada waxa weeyaan waxa meesha lagu dhaqmay haddii aan fiirinay waa arrintii ayada ahayd oo waxba iska bedelin marka ma dhihi karnaa markaan wax furuuq oo u dhaxeeya ma jiraan waa la dhihi karaa furuuq u dhaxeeya jamaacata alkhawaarij waqtigii cali ibn abi aalib soo baxday iyo qoladan hadeertaan ah waxa u dhaxeeyo la dhihi karaa qoladan waqtigan joogta cali ibn abi aalib iyo mucaawiya magaaleeyaan bal waxaa laga yaabaa saxaabatu rasuulillah inay yihiin u arkaan sababta diinka fiicnaan oo kuwaas ka diin fiican yihiin ma aha laakiin waxaan ayaga iyo cali ka dhaxeeyaan ba jira laba casri kala yihiin wax isku dhow ma aha awgeed bayna dagaal ugu qaadanin sidaa daraadeed waxay leeyihiin cali ibn abi aalib iyo mucaawiya dad wanaagsan ay ahaayeen qaarkood ayaga kamid oo hadda nala jooga magaaleynaya laakiin khawaarijtii hore oo aan ku tilmaamay cali ibn abi aalib iyo mucaawiya iyo dadkii oo dhan inay gaaleeyeen wa kullu man qabila tahkiim oo dhan inay gaaleeyeen hore kugu soo sheegay marka sababtana wax kale ma ahan waxa weeyaan wax ka dhaxeeyaan jiran qoladaas hadda waxay leeyihiin dadkaanan loolan kula jirnaa dadkii hore inaan wax ka sheegnaahu dacwada inay dhaawac u geersanaysaa hadhow waxaa laga yaabaa hadday sidii rabaan wax ugu suuro gasho inay wada diidaan ayib taas calaamaday iska leeyihiin bay ahayd jamaacata takfiir iyo khawaarij ay ku aan dhihi karna ay ku kala tagsan yihiin laakiin waxay kala mid yihiin iskuga fiirso qolada khawaarijta wax allaale wixii muslimiin ee zabankaas jiro dhan way gaaleen wixii ayagaba ka soo haray
جماعة التكفير في هذا العصر وحويان وحي أيك صهر قال إيه مركا أوجو إن إسكمديه لكن أشخاص أو معينين أو قرادس قالين جرين كوان إني كأمس هوادع كرتا لكن وحي كسيمين قالك كستبع عصر أي جوجت وحي أيك صهر ويقالين والنقطة إسيئجهين لكن علي بن أبي طالب شخص فلان مقالا كوهر ويقالين جرين كوان هدرتان قالين ما يمشي كلا بدريهن لكن وحويان شيء استراتيجي أم أصول ما ده كرأه وحويان ولجيدة كلي علي هذا نبات نقوم هاي وقتي سنوات جاي لكن ذاتك هذا أنجونا ربنا إن الحب نصوصار مد الله بعض ونديه كرنا ويسكو خلاف سين هذه بخلاف وجره خوارجتي وهردت جيسيا لا أحد جيس إنما لازم حي أسورة جلسة إني مبدأ ذا قرصنين أي ذاتك مسلمين تأهاي أي لهري ماذا مساجده أي لسوقلان أي وحلب برتان أي دودي وحكا قلان وحي أهان جرتين إن مبدأ ذا أي قريان قال لما يبو أرفي جرين لأنه وحوي حق إلا موجيه واجب كان نكيس قابينا قال لما هو جماعة التكفير في هذا العصر صومالي جوغينا إيميل كست جوغينا وحي قاعدة أوليهن أو تنظيم كود أقترسل أن تنظيمهم سر وإفشاء ذلك خيانة يعني التنظيم كأنك أنكو شقين جماعة أهدافتنا وأنه قرسية نكي نقفع فينا وأن خائن هو أنك جماعة كمدة ولذلك قفك أيضا لو سودري انت أنا لو سودرين مراحل واوين بالله سومرسينا يا وحال الديدة يا سرتاس إن لقوا هذا كعبس شديد أوجه مركا ماشي أصلا ويسو خلاف سيهم بعده كرنا كوي هورا وحي أهانجرين هذا وحي أقول أهانجرين مركي مسلمين تخلافين إني بورها إيه ما لما الدجان إني كل جود آذان هذا يقول أهانجرين إيه جرين ده كان وحنا لما عادي كرنا جد أي مرة لما مري كرنا درسنا ما نقول كرنا كوان أيجا وحيالا سداس إني يرادان ويسكت ديان لكن ده كيري كده حجران وحالة يابا إني مقايد أي وحكلا عنان إني مساجد كدنا أي كجد كران صلاة إني صفك سوق لا لكن إمامك أي كحرني صفك هو رايدنا كجد جيران لكن إمامك كم محرنا كل يسد كذوها ومدن وين كده حجران وين كده حد حسين وحاول تميزنا مرها اختلاط أو مع فهمي أنا مرها ما كتاسنا وحني كرنا نوعا ما وحيالها عندي كرنا إني كجد وينهن دوناشة أو هذا الجوهري أو لكعبة كرماء لكن مركز مضمون كجود أتكفرس ما جعبها كلبد نادناه معنيه مضمون كواسكم مت سيدي ويا وحي هراء ما كلا إن أمد الله جد للدنيا بامش كجرا وحكلا مجرا مركز تا أنت فهمتد وحنكو سهور مري علامات كإليهن أيجاس إن أد معناها شبهات كأنكو شيء دون أيجا إليهن إن آذن ولي جاب إلا وسنين مركز شبهات وهره وحيليهن وإليهن حديبة أيدتك ما رحد أحي إسلام كأيديديهن إن لقوا حكمي أما أي كل رغمان أيجا وقالوا به شعبي أيجا هوس جوجنه سيدا سوق لقالوا بيساس إليهن بل أفيرس شبهات أفيرس ننكي وحيليهن المسلمين تمان تجوج dadka u madaxa islaamka way diidan yihiin inay ku xuguntamaan bal dhab ahaan islaamka ma rumaysnaba sidaas ay ku gaaloobeen ay leeyihiin qoladan kale oo shacbiga ane ayagana maadaama arintaas ay ka aamusan yihiin ayagana xukumkii bay la qaateen marka ugu horeyso waxaan jeclahay markaan caatifada dhinac iska dhigno dadka xukaamta ah ee dadka muslimiinta oo madaxda ah nabiga kaleey salaatu salaam tilmaaman iyo sifooyin waaweyn buu ka bixi marna in la ateeco ay waajib tahay oo min usul islaam ay tahay oo kalimadii muslimiin tahay in kali noqoto ay la ateeco ku xiran tahay marna wuxuu sheegay inay ateecid leheen haday gaalnimo la yimaadaan gaalnimadaas waxa weeyaan nabiga kaleey salaatu salaam markay ay yiraahdeen ilaahay rasuulkiisa uu yiri dad waxa jiri jiro umara ama dad madax ah taarifuuna wa tunkiruna sidaas waxay sameyn doonaan iyo xumaanteeda markaas ay yiraahdeen afala nunabiduhum ya rasuul allah nabi wuxuu ri qaala la illa an taraw kufran bawahan lakum inda allah fi burhan wal ufirsu nabiga illa an taraw kufran kalikum ma gaabsan kufran bawahan lakum inda allah fi burhan qaal limad oo hadaad ku dagaalantaan oo ku dishaan ilaahay agtiisa burhan aad ku heli kartaan markaad heshaanaad kula dagaalami kartaan laakiin inda kala maya ya leey marka waxay u baahan tahay ninkan an yuhkama calayhi bil kufri an taquma calayhi al hujja horta in hujjada lagu oogo waa u baahan tahay
mawaanicdii xujadaas inay meesheedii marta u diidi lahaydna inay meesha ka marantaha loo baahan yahay. bal u fiirso marka la leeyahay ummadda waa inay xujadii ilaahay ku ogantaa, waxa weeyaan xujadii waa in baraahiinteeda qofkii uu maqlaa, xujadaas inuu maqlo wixii u diidi lahayna waa inay meesha ka baxaan. kadib baa waxaa la dhihi karaa qofkaas ama gaalnimo ama islaamnimo lagu xukumi karaa. ayib taa horta waxa weeyaan waa mid anoo u imaan doono dadka shareecada islaamka caqiida waa shariica aan ugu dhaqmaynin oo madaxda aan u imaan doono, laakiin waxaan rabaa inaan ku hormarsiyo shacbiga asiga ninkii hadduu gaal noqdo oo madaxda u ahay shacbiga gaal may noqonaya. su-aashaas haddii aad jawaabteeda saxda heshid waxaa kuu fududaanaya inaad shacbiga iyo ummaddii aadan hal khaana wada gelinin. bal nabiga calayhi salaatu wasalaam dhegeyso xadiidkii saxiixi muslim, satakunu umaraa fatacrifuuna watunkiruuna faman carafa faqad bari'a waman ankara walaakin man radiya wataabaca. u fiirso nebigu wuxuu waxaa dhici doonta dad madax ah wax badanoo wanaag aad ka arki doontaan, wax badanoo xumaanna aad ka arki doontaan. ko markaasuu uri nebigu faman carafa faqad bari'a, ninkii garto waxay yihiin eena kaga digtoonaada ummadda uuna diyo ninkaas beri buu ku yahay dembigooda. ayib waman ankara biqalbihi, ninkii qalbigiisa ka nacane oo awood u heli waayo inuu ayaga la dagaalamane asigana faqad bari'a u taalo. nebigu wuxuu uri walaakin man radiya wataabaca, dadka gurbaanka u tumo ee madaxdii waxaasay soo saartay waa wax fiican horumaray gaartay diinkii baan iska tuurnay, dadka sidaas gurbaanka ugu tuma nebiga ayagoo la xugum yihiin buuri. marka waxaa yaana dhici karaynin in ummaddii uu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu laba qayb uu kala dhigay in iyadii xukaamtooda hal khaana la isla geliyo. bal u fiirso nebiga man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadihi faman lam yastadic fabilisaanihi waman lam yastadic fabiqalbihi. ninka maanta dowlad military iyo boolis leh ee xugumka ayada wadato ninka kari waayo inuu ayada wax ka qabto ee qalbiga ka naca inaad tiraahdid ninkaasuu la xugum yahay, nebiga hadalkiisaa diiday calayhi salaatu wasalaam. liannahu nebigu wuxuu yihi saddexdaas maraatib waa iimaankay ka mid tahay. ninkii qalbiga ka nici waayane wa adcafu aliimaani walaysa min waraa'i dalika min xabati khardalin min iimaan buu nebige. haddii qalbiga inaad munkarkii ka nacdid lagaa waayo waxaad la mid noqotay dadka munkarka wadato. laakiin haddaad tidhaahdid munkarkii gacantaada haddaad ku diiday ama gacantii waa kuu suurageli waashe afkaad ka diiday, waa kuu suurageli waashe qalbigaad ka diiday, intaas maraaxisha aan ninkii ka diido iimaankiisa waa u haabit. dadkaas munkarka la yimidna wax shaqo uu ku leeyahay malaha. madaxda ahay wax allaale waxay sameeyaan oo dhan yaan annaga ku xugunsannahay waxa weeyaan waa khalad ummadda laga gelay. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay haddii fasaadka u bato cadaabkii waa soo degaa buu nabiga calayhi salatu wasalaam yidhi waannaasu yubcathuuna calaa maa maatuu calayh. taas waxaa ka caddaatay munkarkan adduunyada wada yaallo oo dadka badana ay ku dhaqmayaan haddii lagu ciqaab muto oo la dhinto dadkii wanaagsanayna wanaagooda lagu soo bixinayaa, intii xumayn xumaantooda lagu soo bixinaya. la dhihi maayo ciqaabka markuu ku wada dhacay hadduuba fasaadka badnaay fasaadkaasaa loo wada qabanaya kulligeed sidaasay noqonaysaa. qawaacidda islaamkay kasoo horjeeda. ilaahay wuxuu uri likulli imri'in minhum maktasaba min alithmi, qof kasta oo bani aadamka dembiga asiga ou galay asaa loo qabanaa buu ilaahay leeyahy. marka nin madaxweyne ama noqday ama wasiir noqday dembi ou galay ama dulmi inuu macnaha ummadda ku qasbo uu doonaya inaad calaa baqiyati afraadi alumma almustadcafa aad tidhaahdid adinkana waa la xugun baa tihiin, waxay noqonaysaa runtii waxaan diinta islaamkana meel ka waafaqsanayn, wax ay ka jiraan aanan jirin. laakiin waxa weeyaan in usuusha loo laabto, nusuusta lagu camal falo, keli un baa loo imaan karaa. ayib waxaa aad aan ula yaabsanahay jamaacata takfiir meel kastoo joogto dhulkeena dhul kalaba waxay leeyihiin markaan leenahay shacbigii gaaladii shacbigii waa gaaloobo xukaamtii ama madaxdiiba meel noqday aan leenahay annaga ka jamaaca takfiir haddaan nahay kuma jirna yidhahda. maxaa yeelay lianna xukma ara'iisi laa yansaxibu calayna. ayib adiga dadkii haddiid iska dhex bixisoo tiri maadaama ummaddii aad ku dhex nooshahay aadan yadna ku inkirin, lisaan aadan ku inkirin, ood aamusan tahay ood isqarinaysa, haddaad ku gaaloobi weysay ninka oo ninkaa ka soo horjeedo ama qaylinayo ama ummadda ugu digayo
ama qalbiga ka neceb sidee uu gaal ku noqday adigana aad muslim ku noqotay su-aal qofkii in muslimka in isweydiiyey ay habboon tahay wa marka waxa weeyaan in la jiifiyaa bannaan hadday mas'alada tahay oo annaga markaan ku jirnana waxa weeyaan annagana waa xukumkii waan ka baxsannahay dadkiina lamid ahayna xukumkii waan raacnay jannada adiga malihi ninkaad rabtana gelin kari maysid ninkaad rabtana ka bixi mayside jannada ilaahay baa iskale shariicada islaamka aninkii ku dhaqmayaana heli karo marka ummad yar oo meel inta caqliga wax loogu akriyey baatilkana xaqu noqon maayo xaqana baatilku noqon maayo laakiin mar kastaba waxaan laga maarmaynin in nusuusta shariicada xaqiiqada loo laabto ninka mustadcafka ama awoodda aan lahayn in ilaahay subxaanahu wa tacaala uusan u qabsanaynin liannahu ilaahay wuxuu leey laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha bal u fiirsan ilaahay nafku ma qasbay naf inay ayada waxayna kari karin inay ay fuliso walidaalika ilaahay wuxuu baneeyey fii nasi kitaabihi qofkii haddii gaalnimo lagu qasbo awood uu isaga celiya ausan lahayn inuu afkii gaalnimada ka qirto qalbigan islaamnimada ku adkaysto way u banaan taha la yidhi maxaa yeelay awood uu waxaa isaga celiya maadaama uusan lahayn islaamkeenna majaal badan buu leeyahay man kafara billahi min bacdi iimaanihi ilaa man ukriha waqalbuhu muطma'inu biliimaan walaakin man sharaxa a ilaahay uu yihi ninka qalbigiisa ou ninka wuxuu ku qasbaa hore u raaca waa goonigeeda laakiin ciddii wax ka awoodi wayso inay fuliso ilaahayna uu qabsan maayo taas macnaheediina ma aha xukaamta jirto waxay rabaan ha iska sameeyaane annagana dulmigaas waxba yaanan ka qabanin ee ummaddii ayna u gurmanin macnaheedii ma aha haddii dulmigaas ha laga aamuso la yidhaahdo ummadda in oo ka aamusta waxaa ugu badan jamaaca takfiir walhijra ummadda kale waanu arkaynaa maanta caalim kastoo jooga idaacaduu ka qaylinaya masaajiduu ka qaylinaya war shareecadii ha lagu dhaqmo war caqiidadii ha la saxa war ummaddii wanaagii ha la sameeyo war dadkan la dilaya dembigaa laga qaadaya dhibka imaanaya inay gaalnimo la geysaa dhici karta habeen iyo maalin baa loo taagan yahay jamaacadaa la aasaasay xisbiyaa la aasaasay golo oo macnaha musaalaxaadaa la aasaasay intaa waxaa loo samaynaya waxa weeyaan dulmigaan jirna saan kaga bixi lahayn laakiin nin aanba joogin saaxada wuxuu yahayna aan lahayn inuu yidhaahdo aniga keligay unbaa wanaag qabanaya ummaddaas oo gurmanayso habeen iyo maalin u dhimanayso siyaad barra markuu inkiray dhaxalka in ninkii naagta ayna sineen inay siman yihiin markuu soo dadka u go-aamiyey ummad baa ka daba hadashay dadna waxa weeyaan lagu dilay dadna ay intaasoo sano ee xabsiga lagu iloobay marka adigana waaligaas waxa weeyaan magaalada waad ka haajirtay geed hoostiisaad gashay marka abaad leedahay ummaddii kale way raacsan tahayoo madaxweynihii bay isku xugum yihiin marka hadalka ma aha sida loo leeyahay ma aha waa sida uu dhigan yahay weyaan sidaa daraaddeed waxaan leeyahay arinta la leeyahay dadka shacbiga ah madaxdooda ay ku xugum yihiin ilaahay diintiisa meel kaga jirtana ma jiraan caqligana yeeli maayo xaqiiqada jirtana way diidan tahay laakiin ummadda inay gurmato diinteeda ay meel mariso inta ay dhibkaa noo timidna waxa weyan isticmaarka markuu wadamankeenna qabsaday ilaa uu markaa maanta laga joogo weyaan ummadda islaamka ma aysan aqoonin isticmaarka wixii ka horeeyey shareeca oo caqiidada laga qaato dhaqankana aan laga qaadan lama aqooni jirin waxaa keenay keli a waxa weyaan isticmaarki iyo rawaasibtiisa in arintaas la baabiyo oo caqliga ummadda laga saxana waqti dheer ay u baahan tahay in juhdi lagu bixiy u baahan tahay laakiin ashuun in lagu aadaamo waxba laguma bedelin karo haddii aniga inta halkaas iska fadhiisto aan idhaahdo ummadda dhan waa sidaas hal qofna aan waxna u sheegaynin ummaddiina aan waxba ka dhaadhicinaynin waxa weeyaan ninkaas waxa weeyaan habar fadhisaa layidhi waxa weeyaan legdin la qaabsan dadka Soomaaliya ay dhihi jirtay weeyaan marka taas sax ma ah sidaa daraaddeed yaa waxaanu leenahay xaqiiqadii shacbigana waa shay dadka madaxda haddii ay jirto beled oo madaxdeeda ay xun tahay ee ummadii qasab dhaqan xumo ugu dhigayso dembigaas ayadaa iskale ciddii ku raacdana way leedahay ummadda kale ama qalbiga ka diidan ama ficilka u diidan ama lisaanka u diidan waa ummad toosan doonaysa dulmigaas in iska dulqaato laakiin sunnatullahi fi lardin aan ka tegaynin oo dulmiga markii la zuulinayo waxaa la rabaa anlaa yu-addii ilaa dulmin akbara minhu aa la doonaya xataa madaxweyne hadduu gaal noqdo nebigu wuxuu noo fasaxay in la ridi karo laakiin taas naftigeeda waxaa la rabaa inan aanu heli karno kuwo aan ku ridi karno laakiin mujarad fasaad keligeed lama rabo oo ninkii dulmigiisana tamkiin u samaynayso ummadina qoortiisa macnaha uu ku baabi'inay taas lama rabo ayib marka sidaa daraaddeed waxaanu leenahay shubahada ugu horeyso dadkii iyo shacbigii waa isku qayb aan leenahay
shareecada islaamkay ka soo horjeedaa. nin kasta waxa weeye laa yajzi waalidun can waladihi walaa mawluudun huwa jaazin can waalidihi shay-a. nin kastana gooni baa loo xisaabayaa wuxuu la yimaado iyo wuxuu ka tagaba. taas waxa weeyaan waa shubhada hore aan raba inaan ka jawaab. shubhada labaad oo ay leeyihiin mujtamaca asiga waa mujtamac jaahili ah, liannahu shareecada lagu dhaqma iyo shacaa'irta oo ilaahay lagu caabudayo saafi ma aha. sidaasay leeyihiin. waxaan leeyahay horta marka ugu horeyso oo in waxa ay habboon tahay inaan fahamno shareecada islaamka markii lagu xukumay qofka mas-uuliyadda ay ka saaran tahay shacbiga ma ahan, waa dadka madaxda weeyaan. dadka madaxdaana laba qayb ay u kala baxaan. nin wuxuu u arkaa shareecada islaamka inay xun tahay, sababna ay ku keeni karta in dib ay ku rido oo qaanuunka iyo caadaadka iyo caraafta ka fiican oo aaminsan yahay. waa gaal ninkaas oo madaxda. mid kale waa lamid oo ninka aaminsan shareecadana way wanaagsan tahay, qawaaniinta iyo waxaana way wadaagsan, labadooda waa siman yihiin. sharcigii ilaahay iyo bani aadam waxay dhigteenaa siman oo labadooda khayr waa lagu wada gaari karaa, sharna waa looga nabadgeli karaa. ninka hadduu yiraahdo waa lamid asigane. haddii uu aamino qofkii shareecadii islaamka ahayd maba dhammaystirnabo. qofkii bani aadamka ama shacbiga ama ummadii islaamka ahayd waxay ay macnaha ku camal fasha shareecada maba ka wada helaysee qawaaniintan ama maxaan ku ihahdaa dastuurkan la dhigtay yaa ka dhammaystirnimo badan. asigaasa in lagu dhaqma ay tahay haddii ay qofkii aaminsan islaamka waa ka baxa. laakiin ninka hadduu nin madax yahay ou leeyahay ani islaamka inuu sax yahay baan ogahay, in lagu xuguntaman inuu waajib ay tahay, laakiin haddeertaan dadkaan u bislayne ummaddii inaan isla bislaynaan rabnaa kadib aan shareecada ku xukumna haddii uu leeyahay, waxaan leenahay waa dembi weyn, waa kabiira min kabaa'ir dunuub. laakiin bixaddi daatiha waa gaalnimada ma dhehayne. waxaan rabnaa inaan u caddayno in arrinta asiga uu ku dhaqma inayna sax ahayn ee ay gaalnimo gaarsiinayso waa looga digaya. haddii sidaas oo kale cabsi u yeelo aniga waxa weeyaan shareecada waa ku xukmi lahay, inaan aniga shareecada aan meel iska dhigon qaanuun ku xukumay waa ila xun tahay, laakiin gaaladaasaan ka cabsana inay madaxnimada iga qaadato oo haddii shareeca iyo soo hadal qaado dadkaa laygu kicina. sidaa daraaddeed anoo og shareecada inay waajib tahay in lagu xukumaan ugu leexana. ninkaasna waxa weeyaan in xujadii lagu ogaa waajib hore gaarnimo loogama xukminayo, waa loo caddaynayaa inaan gaalo looga tegi karin daraaddeed shareecada islaamka lagu dhaqmo. marka xataa gaalkii ninkii muslimka ah oo madaxda ahay shareecada islaamka ku dhaqankeeda markuu uu ka tegayo yaa waxay tahay sida ugu tegaya la kala fiirinaya. hadda bal u fiirso shareecada islaamka aniga iyo adiga inaan ku dhaqanno waajibay tahay. ilaahay wuxuu yidhi yaan la zinaysanin. ayib zinadaas qofkii hadduu sameeyo asoo og zinada inay xaaraam tahay ma waxaan leenahay islaamkii uu ka baxay bisababi annahu zana? maya. waxaan leenahay kabiira min kabaa'ir dunuub uu sameeyey oo zinada ah, shareecada islaamka uu ku dhaqminaan leenahay, laakiin islaamka uguma bixin. laakiin bikhilaaf hadduu yidhaahdo shareecada islaamka zinada waa xarimta, wax jirana ma aha, zinada waa bannaan tahay hadduu yidhaahdo istaxalla maa huwa macluum min addiini bidaruura, gaalnimo waa. dembigii oo laysla qabanayaa laba weji kala yeeshanay. marka taasna waxaa lagu kala bixin karaa alrujuucu ila alculamaa'i araasikhiina fi lcilm. masaa'il mucaqada weeyaan u baahan qofkaan aad gaalnimada ku xugminay iyo qofkaan muslim aad leedahay asbaabta horta inaad fahamsan tahay, xayfiyaadka aad darisid, qofkii aad ag fadhiisatid, xaqi aad u caddaysid, markuu kaa diiday kadib aad xukumkii aad soo saarto. taasaa loo baahan yahay mooye wax dhacaya ma aha. waxa la leeyahay anigaa ninkaan aqaano wixii waa diiday horay baan kaga xukumaya, taas sax ma ah. ayib haddii taas lagu gaaloobayane jamaacata takfiir qayb bay ka tahay oo mujtamacii bay la nooshahay. ummaddaas waxayna ay qabtaan ummadda ma qabo weyne. haddii taas lagu gaaloobayo waxaraya inaysan jirin baa yaa la wada ogyahay. ayib marka shareecada marka mujtamacii ku dhaqmitaankiisa shacbi ahaan midna waxa weeyaan shacbi ahaana looga dhaqmi karaa, salaadii zakadii wixii qofku waa oogi karaa. qofna waxa weeyaan waxna waa wax dowladda koro ka xiran. qofkii haddii shacaa'irtii asiga la amray ou khilaafo mas'alo kasta xugun bay leedahay. xataa soonkii iyo salaadii iyo zakadii isku xugun ma ah. waxaa khalad ah inaad tiraahdo ninkii shacaa'irtii islaamka qaba waayo waa gaal inaad tiraahdo xataa waa khalad. ninkii salaada ka tago asigoo banaysanaya salaada inuu diidan yahay layskuma khilaafsana inuu gaal yahay. laakiin ninkii salaada kas ugu tago wahsina ugu tago ummadda culamadii way isku khilaaftay. laakiin zakada layskuma khilaafay. ninka hadduu zakada diido xooga looga qaadaa
diidadiisaasna kuma gaaloobay macnaha zaka inay waajib tahay waa ogahay buu leeyahay laakiin kuwaan aniga in iga badnayn ee ma bixin karo bakiilnimo ku ximbaarayso zakadii mana macnaha ma dhahay zaka ma jirto sharciga ma dhahay laakiin ani ma bixin kari buu leeyahay zaka waa jirta waa waajib ani ma bixin kari ninkaas la dhihi maayo gaalata iyo gaalma tahay maba la dhahay waaba laga soo qaaday xoog sida Abu Bakr oo ula dhaqmay ummadii wallahi law mana'una aqalan kanu yu'aduna ila qataltum ala man'ihi mana lagu gaaleyn arintaas ayada ninkii diiday waa goonigiis marka sha'airta ta'abbudiyada qaarna waa arkaanul islaam qaarna waa waajibaad qaar waa sunan isku wada xukun ma ah mid kastana xukunkeeda ay leedahay in la kala ogaadana waxa lagu heli karaa in al-rujuu' ila kitaabillah wa sunnati rasuulihi bi fahmi salaf as-salih waxa lagu kala tagsiyaa intaas weeyaan haddii qof kasta uu yiraahdo ra'san aniga ilaahay kitaabkiisa soo daliishanaya ummadii waxay ka yiraahdeen aniga ma rumaysni waxa dhacaysa in nin kasta aqligiisa diin ay la noqoto ay marka taa waxa weeyaan aan leenahay arintaas la mid maaha sha'airtii ta'abudi mukhalafaadka ku timid markaan oo muharramaadkii qofku uu qabanay qofkii macnaha qabri buu caabudaya oo tagaya nin aan ilaahay ahna uu leeyahay wax isii ummadii buu ama asiga been uu ka gadayo ana wax idin awoodo uu leeyahay qofkaas asiga laba shay in la kala ogaado fiican waana ku sharxi doona nuqdadaas muhiim waa waxa laga yaabaa shaygan falitaankiisa la sameeynaya bi'aynihi kufrun inuu yahay qofka sameeynaana uusan ku gaaloobaynin waa macna daqiiq ah qad yakunu fi'lu shay'i bihad dhati kufran wa noqon kara laakin fa'ilu dhalika shay laysa bidarura an yakuna kufran kafiran waxa laga yaabaa laba qofood in hal shay isla sameeyaan kana uu ku gaaloobo kana uu macsilay ku noqoto san gaalada ku noqonin marka dadkan mukhalafaadka ama muharramaadka sharciga sameeynay la wada dhihi karin maayo kulligood waxa weeyaan waa wada gaalo ee wax qofkan uu sameeynaya cudri waxa jira oo ah riday in qofka lagu gaaleeyo diiday waxa kamid ah al-jahlu bid-diin qofkii waxa laga yaabaa maanta inuusan ba ogeynba qariibu ahdin bil islaam waay ama meel oo dadka muslimiinta ka fogo ku nool yahay waxyaala min arkaan al-islaam ah yuusan rumaysnayn aba dhici karto haddii la dhimaay ninkaas maadaama salaad ba uu raasul rumaysnayn ee nabiga kali iyo ilaahi uu rumaysan yahay waa gaal la dhimaay waxa la leeyahay salaad muxuu rumaysan waay marka la weydiyo haddii la ogaado inuusan ba ogeyn salaad inay waajib tahay waxa la leeyahay al-jahlu waxa weeyaan cudr jahliga u diiday in gaalnimo lagu xukmiyo tayib waxa la mid ah oo gaalnimadii diiday in qofka lagu xukmiyo waxa weeyaan al-ikrah haddii aad maqashid qofkii oo dhahayo kalimatul kufri ku dhawaaqay adigu waad maqashay ninkan waa gaaloobay baad iska leedahay waa inaad weydiisaa maxaa kugu qasbay adigoo saas dhahayaan ku maqlay marka wuxuu ku leeyahay maadan arkaynin miya seefta aniga madaxayga korkayga lagu hayo la oranayay marka waa sidaas dhahdii kale waan ku dilaynay ama wiilkayga ama caruurtaada laga dilaya la leeyahay haddii lagu ikraaho waa banaan tahay qofkii kalimatul kufri inuu ku hadlo waxa kamid ah waxyaalaha la isku cudray al-khata khata ilaahi subhanahu wa ta'ala waa naga xadf haddii qofkii uu sameeyo waxyaala lagu gaaloobo wuxuuna u sameeyay ay gaftay waanan ku caday doona adiladeedana waan keeni doonaa marka waxaanu leenahay maxal arintaas lagu gaaloobay aad u sameysay nin baa wuxuu arkay nin sheekh asoo sujuuday waxa leeyahay maxad ugu sujuudaysaa wuxuu leeyahay aniga waxa weeyaan waxaan ula jeeday inaan sheekha aan ku karaameeyo inaan ku ixtiraamaan u jeeday inuu sujuudo ilaahi sidoo ugu sujuudaan u sujuudo ulama jeedin waxa leeyahay taas ikraam ma aha ixtiraamna ma aha ixtiraamku xuduud uu leeyahay in غير الله in ilaahi waxaan ahayn loo sujuudo ixtiraam ma noqon karto marka ha u sujuudana la leeyahay khata oo gale waa loo cadeynay la dhihima maadaama aad u sujuudo ilaahi waxaan ahayn waa gaalowdi hore laga dhihimay ee waxa la fiirinaya hal hunaka maani'un yamna'uhu min al-kufr min al-hukm alayhi bil-kufr gaalnimadii lagu xukmo waxdiida ma jiro marka bulshadii markii muharramaadka ama mukhalafaadka ay sameynayso acdaarta islaamka oo leeyahay may u sameeyeen mas'uudurkii waa ka maran yahay haddii ninkii Soomaali uu yahay ee meel qaryo uu joogo sheekhi diinta dadka ugu yeeray maqaryada joogo oo leeyahay qabri waa la bari kara ninkaas soo diinta xaq ku ogaado waa ku adag tahay
waxaa la dhihi karaa gaal markii inta loo tago loo caddeeyo xaqi loo sheego ilaahay keyrkiis lama bari kara la yidhaahdo kadib baa la dhihi karaaye ninkan diin ahaan waxaa soo gaarsiiye waa sheikhaan shiikhii asiga diinta uu ka qaataa wuxuu leeyahay haddaadan ilaahay weydiisanin markaad wax weydiisanay sheekh fulaan aadan soo marin dacwadaada iyo cibaadadaada la aqbali maayo ninkii diinta asiga u keenay baaba saas dhahohay ninkaas asiga la dhihi karin maayo maanta arrintaas waad ku gaalowda hore laga dhihi maayo ee annaga waxaa waajib nagu ducaad ah inaan dadkaas xaqa u caddayno ninka shiikha oo dadka dhumiyey iyo ninka miskiinka oo la dhumiyey iyo asbaabtay xaqa ay nooga qaadan lahaayeen oo ah in qowlkii la qurxiyo hadalkiina la qurxiyo ilaahay uu yidhi udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati waalmawcidati alxasana xaqa markaad sheegaysid sidii lagaa aqbali lahaa inaad ku dartid yaa loo baahan yahay sidaa daraaddeed waxa weeyaan waa qayb oo shubhada nimanka jamaacatu takfiir ay daliishtaan oo ah dadkii iyo madaxdii in isku xugum yihiin iyo dad kastoo mukhaalafa sharci sameeyabo inay hal xugum ay leeyihiin labadaas aynana jirin baan hadda kuu caddeeyey adiladooda iyo tafsiilka iyo dheeraanta waan kuu sheegi doonaa shubahdooda waxaa ka mid maadaama ay leeyihiin dad badanoo laa ilaaha ila allahu sheeganaa ay badan yihiin haddana islaamkii waxaan ogoleen ay ku dhaqmayaan annaga laa ilaaha ila allahu muxamedun rasuulullahi hore ka aqbali mayna ninka waa inaan weydiinaa wuxuu ula jeeda laa ilaaha ila allah iyo waxay ka xarimto taasna sharci islaamka muxuu ka qabaa oo nebi moxamed ninka markuu soo islaamaya labada shahaadateyn waxaan ahayn wax ka duwan ma weydiin jiray mase wuxuu dhihi jiray shahaadateyn keligeed wax tari maayana waa inaad waxaas ogolaataa arrintaas way badan tahay shubahaadkooda waan kugu soo dari doonaa haddii usbuucda kale ilaahay una gaarsiiye wallahu